السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مالي wanaagsan asxaabta waa idin salaamay waa Abshir Fitness. Muuqaalkan waxaan rabaa inaan ka hadlo carbohydrates. Waxaan maqalnaa qof walba markii uu rabo inuu miisaan iska rido inuu dhaho carbohydrate-kii aan iska daayo. Horta carbohydrates-ka cuntooyinka laga helaa. Waxaa laga helaa cuntooyinka kala ah sida bariiska, baastada, potatoes-ka, digirta soo galaysa ama cambuulada saa u taqaano, oatska, waxyaabaha macmacaanka ah ayaga dhan carbohydrates waa. Fruitska, vegetables-ka carbohydrates waa. Laakiin carbohydrates-ku way kala fiican yihiin. Waxaa jiro healthy carbs iyo kuwa aan healthy ahayn. Kuwa fiican maxaa ka mid ah carbohydrate-ka fiican? Carbohydrate-ka fiican waxaa ka mid ah whole grains-ka sida rootiga qamadiga ka samaysan, qamadiga, bariiska, waliba nooca oo brown-ka ah. Waxaa ka mid ah oatska, waxaa ka mid ah potatoes-ka, sweet potato ama normal potatoes-ka, waxaa ka mid ah quinoa. Waxyaabahaas dhan waa carbohydrate. Waxaa ka mid ah fruitska, vegetables-ka, waxaas dhan waa carbohydrate fiican. Marka weight loss qofku markuu sameynayo lama rabo inuu carbohydrate-ka dhan joojiyo, because carbohydrate-ku waa fuel ama waa shidaalka jirkaaga uu isticmaali lahaa. Carbohydrate markii aad cuntid jirkaaga wuxuu u bedelayaa glucose waxa loo yaqaano, kadib taasoo loo bedeli doono energy oo jirku isticmaali doono. Waa aragtay qofka markii uu weight loss sameynayo carbohydrate-ka dhan haddii uu iska jaro waxaa dhacaysa tabar darri ay imaanayso, wuu wareerayaa qofka. Lama rabo marka. Horta qofka oo miisaan isku daraya iyo qofka miisaan iska ridaya labadaba carbohydrate way isticmaalayaan, laakiin isku cadad markay isticmaalayaan. Carbohydrate-ku waa muhiim sida fruits iyo vegetables-ka sida grains-ka, qamadiga, rootiga brown-ka ah, oatska, waxaas dhan laga maarmaan u yihiin qofka oo weight loss rabo inuu sameeyo, because jirkaaga ay energy siinayaan. Marka lama rabo totally carbohydrate-ka dhan inaad jirtid. Waa inaad doorataa healthy carbohydrates-ka, waa inaad ka doorataa kuwa aan unhealthy-ga ahayn. Marka waa muhiim. Carbs-ku waa shidaal. Jirkaaga haddii uu shidaalkaas waayo waa aragtay. Haddii aad carbs-ka dhan jarto especially tabartaada way yaraanaysaa. Gym-ka markaad tagto si fiican ma u alamiiteyn kartid. Murqahaaga waxoogaa waxay noqonayaan slim, yacni full ma noqonayaan. Waayo waa aragtay markii aad birta qaado carbohydrate fiican markaad soo cunto pump fiican ay heleen, murqahaaga dhan aad ay u kacayaan. Halka carbohydrate markuu kugu yar yahay aysan aad u kacaynin. Marka carbohydrate-ku waa muhiim. Laga maarmaan ayayna u yihiin healthy diet. Healthy diet yani waa inuu noqdaa 45% oo kale markii aad tusaale kale qof weight loss weight loss sameynaya tahay, and diet-kaaga 20 ilaa 30 ilaa 40% ka mid ah xitaa carbohydrates uu noqon kara. Yani wuxuu iskugu jirayaan marka carbohydrates-kaas starchy carbohydrates-ka sida brown rice-kii, brown bread-kii, oats-kii, iyo carbohydrates-ka fiber-ka leh, vitamins, minerals-ka leh sida fruits-ka iyo qudaarta ah. Labadaas waa muhiim inay diet-kaaga ka mid noqdaan. Inta kalena waxaad ku buuxinaysaa healthy protein-ka inaad qaadatid sida chicken and fish, lean beef, waxyaabahaas dhan, protein shakes. Kadibna aadan ka iloobina meesha healthy fats-ka oo ayagana sidii avocado, nuts, olive oils, waxyaabahaas dhan oo ayagana oo yani sii dhamaystiraya diet-kaaga, because jirkaaga intaba uu u baahan yahay. Marka haddii aad weight loss maqasho, no, carbs-kaaga ha wada jarin. Haddii aad carbs-kaaga wada jarto hadhow waa wareeraysaa ama yani tabar darri aad dareemaysaa. Hadhow sidii aad rabto workout uma samayn kartid. Muscle building jirkaaga wuu ku adkaanaya. Marka carbs-ka ayaa la wada jarin, carbs-kaaga controlled ha noqdaan. So haddii aad doonaysid carbs controlan diet isku dheeli tiran oo energy ku siinaya while still losing weight, waad ila soo xiriiri kartaa. I'm ready inaan ka caawiyo taa. Taasaa loo baahan yahay. Diet-ku waa inuu noqdaa mid aad ku raaxaysanayso oo still energy ku siinayo, ma ahan inuu noqdo mid ku daarinayo tabar darro keenayo. So carbohydrate hadaa maqasho, they are not the enemy. Carbohydrates way fiican yihiin, ayaga dhan yaan laga eliminate gareynin, laakiin kala dooro nooca fiican iyo noocaan fiicnayn. Noocaan fiicnayn waa maxay? Rootiga cad ah ka mid oo kale, waxaa ka mid ah junk foodska, waxyaabahan dhan, burgerska iyo waxyaabahaas dhan ka mid ah. Waxaa ka mid ah baastada nooca refined-ga, yani waxyaabahaas dhan
waa carbohydrateska oo simple carbs loo yaqaano, because maxay sameynayaan mataqaanaa isla markii jirkay hore ka galayaan oo isla markii sugara loo bedelaa, which means ma ku dharjinayaan, which means waa baahanaysaa, so you're going to have to eat more, mar kale inaa cuntaa ku khasbanaanaysa. Halka carbiska fiican ay ku dharjinayaan maadaama fiber badan ay leeyihiin, full kaa dhigayaan, which means calorie yara cunaysa. At the end of the day, calorie in calorie out ayaa muhiim ah, laakiin mar walba healthy choice-ka markii aad samaysid aad wax badan inaad ka cunto uma baahnid, already full ay kaa dhigayaan. Halka kuwaan unhealthy-ga jirkaaga maanta dhan iska galayaan, calories badan ay leeyihiin, still haddana ku dharjinaynin, nutritionally haddana wax fiican aadan ka helayn. Marka always when it comes to carbohydrates, choose wisely, nooca oo fiican dooro. Waa mahadsantihiin. Bye bye.